halkan waxaa ka soconaysa howl adag waa dhismaha suuq si casriyaysan loo qorsheeyay dhismihiisa ka oo ay gacanta ku hayso dawladda hoose ee degmada Cabudwaaq. Suuqan ayaa lagu magacaabaa Jubba Jawaan waxa uuna soo maray heerar kala duwan. Qorshaha ayaa ah in halkan laga dhiso 70 qol iyo hool weyn ka oo ay ka faa'iideysan doonaan ku dhawaad 200 oo qof. Waa kan xogayaha dawladda hoose ee degmada Cabudwaaq Nadiir Cabdikariim Salaad oo sharaxaya muhiimadda dhismaha suuqani u leeyahay shacabka degmada. sida caadiga ahay kormeer shaqo in muddo ah ka socotay soo jiitabaysay taariikh dheer oo ah dhismaha suuqa Jubba Jawaan. Suuqani markii hore halkaas waxa ahaa meel weyn dhulkan wuxuu ahaa dhul dawladeed xilliyo kala duwan baa waxa la waday qorshaha ah suuqa in halka laga dhiso. hay'adda Nis Foundation baa laga caawinayso oo laga garab taagan. suuqan wuxuu ka koobnaan doonaa 70 qol iyo hoolkii waxaana ka faa'iideysan doona in ku dhow 200 iyo tartar dad ah haddii Ilaahay yiraahdo. dawladda hoose ahaan waxaan gacanta ku haynaa mashruucan waxaana doonaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inuu noqdo suuq aad ay uga faa'iideysto bulshada degmadan maadaama mashruuc sidaan oo kale u weyn wali uu degmada Cabudwaaq aysan ka hirgelin. taas Ilaahay baa uga mahadcelinaynaa nuu soo simay nasiibkaasna aan u yeelanay inaan noqono dawladda hoose ee ugu horeysay mashruuc noocan oo kale gacanta ku qabata. Xogayaha ayaa sidoo kale sheegay in ay qorsheysan yihiin mashaariic kale oo anfac u leh shacabka degmada Cabudwaaq. ka dawladda hoose ahaan waxa inoo qorsheysan kar waa noo hordhac inta aan meesha joogno haddii Ilaahay yiraahdo inaan qabanno mashaariic sidaan oo kale iyo kuwa ka waaweynba oo ah dhismihii garoonkii iyo dhamaystirkiisa garoonka kubadda cagta degmada Cabudwaaq. sidoo kale dhamaystirka garoonka weyn ee diyaaradaha degmada Cabudwaaq iyo xarumo kale oo dawladeed oo dhamaantood aan rajaynayno sanadaha soo socda inaan mid walba sida ugu dhaqsiyaha badan ugu degdega badan aan u hirgelino. waxaan codsanaynaa ka dawladda hoose ahaan aan ka codsanaynaa hay'adaha ku shaqada leh inay naga caawiyaan dhismaha guriga degmada ee dhawaan aan doonayno inuu Ilaahay yiraahdo inaan qaab isxilqaan marka hore ku bilowno iyo isku tashi ah. sidoo kale tana aan ka rajayno maamul goboleedka Galmudug dawladda federaalka hay'adaha ku shaqada leh inay naga caawiyaan dhismaha gurigaas degmada oo ay degmadu mutaad u tahay. sidoo kale waxa u baahan dayactir iyo kordhin in qolka loo kordhiyaba saldhigga weyn ee degmada Cabudwaaq. suuqan Jubba Jawaan ayaa suuq aan hadda ku cusbanayn magaalada Cabudwaaq waxa uu jiray tan dawladda Maxamed Siyaad Barre balse haatan ayuu maamulka degmada Cabudwaaq waxa uu go'aansaday inuu casriyeeyo si ay ugu faa'iideystaan dhammaan bulshada ku dhaqan degmada tan Cabudwaaq. Maxamed Ibrahim Salaad warbaahinta qaranka magaalada Cabudwaaq.